Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda Nazlin Beauty Channel ku xiran kusoo dhawaada maanta halkan waxaan rabnaa inaan ku sameysano suugo iyo baasto aad u macaan badan insha Allah waxaa filaa inaad ka heli doontaan dhammaantiina haddana waxyaabaha u baahanahay suugadan ku karsan lahayn oo baastada lagu cunayo halkaasa ujeedaan xawaajiyadeen waa kasaa waa paprika curry powder cumin powder iyo waxaan ku haysanaa coriander powder insha Allah hadaa ka heshaan videogan like noo saar hadaa nagu cusub tahay please subscribe noo saar soo dhawow hadaa nala joogtayna hore hadaa nala joogtayna insha Allah videogan waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan marka waa kaasa haddana digsigeena dabka soo saaranay waxaa saliida kusoo darsanay saliida markay noo soo karkartay waxaa kusoo darsanaynaa basasheena basasha kadib markaa kusoo darsanay waxaa kusoo darsanaynaa haddana hilibkeena asxaabta maadaama muddo youtube ka maqnaa hadalkii dhanaa iga dhudhumay uu adkaaday hadalkii fahanteen kadib waxaa kusoo darsanaynaa waa maagi ama sida taqaanid boo maxaa la dhahay maraq jumbo kadib xawaajida kusoo darsanaynaa xawaajiga haysta isticmaalaysa marka waa kaas haddana paprika kusoo darsanay kadib marka wax kalma lagu soo daraayo biyo lagu soo daraayo marka hore hilibka waxaa rabnaa inuu asaga noo shiilo ma fahanteen haddana waa kaas waxaan iga iloobay waa raqaydan macaan iyo dhanaa isku jirto waaye marka waa kaas hilibkeena markuu soo shiilmo wax biyo ku taabanin sidaa ujeedeen buu aad wax yar kadib dabkan waa u gaabin ma fahmin oo medium u geyn hadaa dab ku dheeraysid hilibka isagoo karinoo kaasuu gubanayaa marka waa kaas haddana hilibka inuu noo soo shiilmay marka hadda biyo lagu darayaa hal galaas oo biyo kusoo darsanaynaa ilaa soo hilibkeena oo si fiican noogu bislaado si loo cuni karo oo kaleete marka waa kaas markaan biyo kusoo darsaday kadib hadda marka haddana waan dabooleynaa dabkan xoogaa ku gaabisnaana mujeediin hadaa dabka u dheeratay hilib waaye waxaa uu kaa gubanaya hilibkaagana bislaanayo marka hadda waa kaas isku soo noqonaynaa markuu hilibkeena noo bislaado insha Allah waa kaas asxaabay sidaa ujeedaanba hilibkeena wuu noo soo bislaaday adii dhacaankiina oo biyaha uu kasoo gursaday hadda wax yar dhacaana ku haray laakiin yaanyadeena kusoo darsanayna dhacaankaas yar ku haray waxaa la rabaa yaanyada si tartiib inay ugu bislaato ma fahanteen kadib yaanyo shiida kusoo darsanay wax kale ma lagu soo daraayo biyana ma lagu soo daraayo haddana waa soo dabooleynaa leh dhacaankii hilibka rabnaa inay yaanyada noogu bislaato marka insha Allah waa kaas asxaabe yaanyadeena way soo bislaatay sida ujeedeen wax biina ku darin haddana marka wax kusoo darsanaynaa baradhadeena oo noo jarjarneed oo noo diyaarsaneed haddana waa kaas baradhada marka kusoo darnay yar biyo kusoo daraynaa wax yar oo biyo oo bakeeri oo nuskiisa oo kala badneen marka baradhadayna ma rabna inay naga jajabto mise ay naga turturto wax yar la rabnaa inay noo bislaato hadii dabkana ir oo kale ma fahmin oo dabka loo yar gaabinayaa marka waa kaas daboolkiisa dhac lagu siinayaa kadib isku soo noqonaynaa insha Allah inta hot daboolin wax yar cusbada aan dhadhamiyo cusbada hadaadi waxaa ku daray maraq digaag ku daray maraq digaag cusbada cusbada oo adiga waa dhadhaminaysa cusbada kugu yaraato wax yar ku darsanaysa ani wax yar ku soo darsaday kadib halkan waxaan soo saartay waa digsigeena baastada sembir waxaan jeclahay mise markasta waxaan jeclahay suugada markaan hor kariyo kadib inaan baastada kariyo hadda maadaama suugada waxeeda dhan soo haweystay oo adii baradhadan kusoo darsaday kadib dabka kale waxaan soo saartay biyo baastada soo saartay baasta qof kasta uu yaqaan sida loo kariyo marka sidaas darteeda wiilal qaar oo iskaabula baastada dhibeyso sidaan ogahay marka waa kaas baastadeen markay biyo noo soo karkartay cusbo kusoo darsanay baastadii aan kusoo darsanay kadib wax yar saliida kor ugu soo shubeynaa saliida waxay caawinaysaa baastada hadhow isku dhageyso furfuray ka dhigaysaa marka waa kaas baastadeen hadda intay noo sii bislaanayso halkan suugadeena noo saarneed oo soo noqonay waa ujeedaan baradhadeena way noo bislaatay hadda marka waxaa kusoo darsanaynaa toonteena iyo kabsarteena kusoo darsanaynaa hal qaande marka waa kaas suugadeen way noo bislaatay hadda marka waxaa kor ugu soo darsanaynaa oo noo dhiman kusoo daraynaa kadib waa la dejinayaa baastadan waa kana hadda waa diyaar ayadana way noo kartay waa ka dejinaynaa dabka waa miiraynaa insha Allah baasta miir lagu miirayaa qof kasta uu yaqaanaa marka baastadana dabka ka dejinayaa waa miirayaa kadib haddana
suugadeena isku soo noqonay. Suugadana waa kaasaa basashii iyo barbaroonigii oo kor ugu soo daray. Waa kaasaa hadda marka wax dhiman oo haba yaraatee ma jirto kaala araga ku dhaca caraf yaa. Marka waa kaasaa suugadeena diyaar way dabka aan daminayna. Hadda baastadeena soo guranayna marka way la arki doontiin sida quruxda badan aan soo hagaajisanay. Qadadeena maasha Allah caadi ma ahna ku dhahay. Waa kaasaa waa u jeedaan baastadeena iyo suugadeena caadi ma ahna ku dhahay. Intan waxaan ugu diyaarsanaa salaatadeena iyo mooskeena. Marka waa kaasaa qada oo isku dheelitiran waa aan ku dhahay hadda cuntid waxaan ku dhahay maasha Allah caadi ma ahan. Insha Allah videogan waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan. Haddana khayran rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.